cabdirashiid muuse maxamed gudoomiyaha iskaashatada bajaajileyda degmada Garowe oo nagu soo booqday daarta SPC ee magaaladan ayaa waxa uu sheegay in laga xareystay mootooyinkoodii waxaana uu walaac ka muujiyay xarig iyo shaqo joojin joogto ah oo lagu hayo sida uu hadalka u dhigay dhalinyarada ku xamaasha gaadiidka bajaajta annagoo cabanaynaba waxaan u nimid dowladda hoose xooghayaheedii iyo agaasimaheedii ay joogaan waxa aanu u soo gudbinay cabashadayada haddii shirkii iyo hoolkii aan iskugu nimina waxa la yiri baabuurta soo wareejiya furayaasheeda shir iyo nidaam baynu galeynaa baa la yiri furayaashu waa wareejinay annagoo ka dhowraynay system iyo nidaam xalay dabeedna waxa la yiri kaxaya baabuurta gacantina ku kaxaya waxaad geysaan stationkii baanu geynay intii kaleetana saakay baa laga ururiyay magaalada ayagoo aan wax kiisa lahayn iyagoo aan wax dambiya lahayn iyagoo ay wax ay sababeen oo u shaqeynayay ilaa 700 oo reer oo qoys walba uu ka kooban yahay ugu yaraan marka la isku celiyo 6 qoys marka waa 7,000 oo qof booy 7,000 oo qof baa xalay iyo maanta biilkoodii la oo wax soo saarkii wax ku siyaasadiina ka xiran yihiin sababta ilaa iyo imika ay ku xiran yihiin ma garan karno marar badan ayay soo laabatay cabashada bajaajileydu waxa ay dawladda gaar ahaan maamulka dawladda hoose ee degmada Garowe ku eedeeyaan in lagu sameeyo xadgudub isla markaana loo geysto xarig oo shaqadii ay lahaayeen laga hor istaago dareewalada mootada bajaajta ayaa ku kala aragti duwan khilaafkan qaarkood waxa ay sheegayaan in iyagu ay maamulka degmada ka ogolaadeen in laga xareeyo gaadiidkooda si maamul iyo nidaam shaqo loogu sameeyo waa kan Maxamed Yuusuf oo kamida bajaajileyda degmada Garowe waxaas waxba kaba jiraan baabuurta anaga xaraynay hadeerna waxaan sugaynaa oo uga jeednaa oo uga fadhinaa qaabkii loo qaban lahaa fawdaystayaasha aan macnaha fawdada aqoonayn baan hadeer dawladda hoose iyo xoghayaha iyo ka rabnaa dawladda ershac loo noqonayo cabdirashiid muuse maxamed gudoomiyaha bajaajileyda waxa uu xogayaha degmada Garowe Maxamuud Cali Guray ku eedeeyay inuu ku hayo faragelin iskaashatada bajaajileyda hadaba waa kan xogayuhu isagoo ka jawaabaya eedahaasi faragelinta ma aanan keenin laakiin faragelinta waxa keenay cidii ay loo horseeday markay hanan weyday heshiiskii iyo dadkii ayna noqotay in bajaajtii lagu qaado khamrigi in lagu la cararo gabdhihii in laga isbitaalada ay yaalin inta oo waayeel ah oo ay dusha ka mareen lana aqoon waayay wixii dilay oo ageysatay xaq bay nagu tahay inaanu raadino amnigooda sidii lagu sugi lahaa istiraatiijiyadana ku shaqeyn lahayn dib u eegisana ku sameeyno saasaan nagu kaliftay bajaajtu bulshada waxay u haysaa howlo muhiim ah waxaana ay fududeysaa isku socodka dadweynaha ee magaalada dhexdeeda sidaas oo ay tahay maamulka degmada waxa ay sheegaan dhibaatadeeduna inay badan tahay oo dhalinyarada ka haysa badankood ay yihiin kuwa mas'uuliyadu ku yar tahay Maxamuud Soo Faysana SPC Garowe.